السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida daafaheeda ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. subaxnimadii saaka aroortii ayaan ka kacay waxaan cagta soo mariyay intii aan awood u yeeshay xaafadda Islii. waxaan si gaar u aaday barxadihii ee ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee isugu soo bixi jirtay ee farxadda iyo damaashaadka ay ku wada qaybsan jireen bulsho aan in badan is arkin halkaas isugu hambaliye jiray halkaasna aan ku soo dukan jirnay. laakiin inta ugu badneed ee waqtigiisa maxayne waa ay wada xirnaayeen maadaama ay COVID-19 jiro inta ugu badanna aysan bulshada isugu soo bixi karin meelaha barxadaha ah. laakiin alxamdulillah ilaah ayaa mahad iska laho dhammaan masaajidada ku yaalo xaafadda Islii waa kuwa shaqeynayo oo lagu wada dukanayo. halkaas ayaan ku soo dukaday asxaab aad u tiro badan oo in muddo is arkin ayaan is soo aragnay farxadda isla soo qaybsanay ciid wanaagsan is soo dhahnay ugu dambeyn waxaan soo gaaray guriga. haddaba waa ii noqon weyday inaan iska aamuso iska yara xalweysto iska yara shaahaysto laakiin intaasba inta aan afkayga gelin waxaan go'aansaday asxaabtii sida qaaska inagu xirnay farxadda iyo damaashaadkan halkan aan kula wadaagi jirnay waa ii noqon weyday inaan idinka aamuso waxaana jeclaystay inaan halkaan idinka dhaho ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. farxaddaas waxaan jeclaystay intaan Caaisha iyo caruurteedaba aysan halkaan idinka dhihin inaan halkaan idinkula wadaago ayagana isku diyaarin ayay ku jireen oo waxay inoo diyaarinaysay xalwadii hadday tahay iyo keega hadday tahay buskudka hadday tahay qaxwadii hadday tahay iyo quraacdiba arrimahaas ayay ku howlaneed iyo diyaarintii caruurta maalintii ciidda oo loo baahnaa in ay tahay maalinta kaliya ee inta badan farxadda iyo damaashaadku ay tahay caruurta iyo dadka waaweyn intaba inay wada qaataan. marka waan ka gaari waayay intaas inaan idinka aamusnaado waxaan jeclaystay inaan halkaan kaligay idinka dhaho ciid wanaagsan. waxaan idinkaga wadaa Caaisha caruurteeda salaan saacadaha soo socdana waxaan rajeynaya ayagana inay halkaan idinkula qaybsan doonaan farxadda iyo damaashaadka maalinta quruxda badan ee ilaahay nagu manaystay ee ummadda islaamka dhammaan uu ku manaystay. waxayna soo dhaafay maalmo qurux badan ee aan soonayn. ilaahay waxaan ka baryaa salaadii aan soo dukanay iyo soonkii aan soo soonnaba inuu ilaahay naga aqbalo dambiyadeennana dhammaan uu ilaahay inoo dhaafo jannadiisana ina siiyo. aaminta ayaan idinka rajeynayaa walaalaha muslimiinta walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan asxaabta ku xiran channelkeena Caaisha Lifestyle. waxaan jeclaystay inaan halkaan idinka dhaho ciid wanaagsan anigoo uga faa'iideysanayo maalintaani quruxda badan maalintaani sharafta badan maalintaani farxadda badan ummadda islaamka ee qaas u tahay. waxaan rabaa inaan halkaan uga duceeyo dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee maalintaani quruxda badan aan qaadan karin ee qaarkood xanuunsan yihiin ee isbitaalada ay ku jiraan waalidiintoodii iyo walaalahoodna aysan qaadan karin farxaddan maadaama qayb ka mid ah jirkoodii isbitaal ku jirto lana tiiraansan yihiin lana murugaysan yihiin lana walwalsan yihiin. waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu ilaahay maantaba caafimaad degdeg ah siiyo si ay farxaddaani quruxda badan halkaan nagula wadaagaan. ilaahay waxaan uga wada baryeynaa inta xanuunsan ee maanta sariir jiifto inuu ilaahay ka dulqaado oo ilaahay caafimaad uma weynine waa imtixaan adduuni inuu ilaahay caafimaad siiyo. inta isbitaalada ku jirto ee xanuunsanna ilaahay waxaan uga baryeynaa caafimaad degdeg ah inuu ilaahay siiyo. idinkana waxaan idinka rajeynayaa aamiinta inaad ku kabi doontaan. waxaan kaloo rabaa inaan halkaan uga faa'iideysto inta aan xornimo haysan ee xabsiyada ku jiro inuu ilaahay xornimadooda dib u siiyo oo ay farxaddaani quruxda badan ummadda Soomaaliyeed farxaddaani quruxda badan bulshadooda ehelkooda asxaabtooda ay la qaybsadaan hadday Soomaali yihiin iyo hadday ajaanib yihiinba. inta aan xornimo haysan oo islaam ah inuu ilaahay xornimadooda siiyo. dhammaan inta noola ah ee aan xornimo haysanna inuu ilaahay xornimadooda dib u siiyo. haddii aan halkaas uga soo laabto oo aan u soo laabto farxadda quruxda badan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan asxaabta ku xiran channelkeena waxaan leeyahay meel kastoo dunida daafaheeda kala joogtaan ciid wanaagsan. waxaan idin leeyahay farxad ku ciida ku damaashaada ku xalweysta ku hilibeysta oo maanta waxay ahayd maalinta hilibka ma ahan kaliya maalinta xalwada. waxaan idin leeyahay meel kastoo joogtaan farxad ku ciida oo damaashaad ku ciida
halkaas ayaan rabaa inaan uga baxo. intaan ugu bixin waxaan leeyahay waa ciide ciida ciida cashiiriya daris wanaagba ciidul caafiya ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida. halkaas ayaan rabaa inaan uga baxo. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddaad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa maadaama ay tahay maalin qurux badan, maalin farxadeed, maalin ciideed, meel kastood joogtaan waxaan idin leeyahay haddaad nagu cusub tihiin ay maanta tahay booqashadaada ugu horreysay ee aad janalkanba aad aragtaba amba aad hore noo daawan jirtay laakiin aadan nagu soo biirin, fadlan janalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, asxaabtaada la shaargaray. muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa waqtiga haydin wacnaado, ciid wanaagsan meel kastoo dunida daafeedaad kala joogtaan. inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano, inta aan qaas isku naqaanay, inta aan hawada iska baranay, inta aan hadda isbaranaynaba waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan meel kastood joogtaan. waqtiga haydin wacnaado. halkaas ayaan rabaa inaan muuqaalka ugu baxo. waxaan idin leeyahay mac salaama.